Jaamacada Hon International ee magaalada Boorama ayaa lagu qabtay xaflad lagu soo gabagabeynayay waxqabadyadii ay bulshada u qabteen ardayda ku jirta sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacada oo ku guda jira waxqabadkii bulshada ee programka barnaamijka loo yaqaan Team Training Program and Community Attachment oo sanad kasta ay fuliyaan ardayda jaamacadaasi wax ka dhigta. Muddadii ay ardaydaasi ku jireen barnaamijkaasi ayaa waxa uu suurta gashay inay fuliyaan ogaanshaha baahida bulshada ee afarta xaafadood ee magaalada Boorama wax ka qabashada baahiyaha la xidhiidha caafimaadka bulshada wacyigelin caafimaad xarumaha caafimaad ee Shifiya Sheekh Cismaan ayay ugu deeqeen mishiin oxygen iyo sariiro halka dugsiga Ibnu Khalduum ee magaalada Boorama ay taangi biyo ay ugu deeqeen. Qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Boorama ayaa sidoo kale ardaydu ay ka fuliyeen hagaajinta kuraasta burburtay dayactirta maktabadaha wax lagu barto deeqo buuga ay gaarsiiyeen iyo sidoo kale ardayda iyo macallimiinta dugsiyadaasi oo lagu tababaray gargaarka degdega wuxuuna barnaamijkan ay ardayda ku guda jireen muddo 2 bilooda waxaana xafladaasi hadal ka jeediyay maamulka jaamacadda iyo mutasharrif kala duwan oo iyagu munaasabadaasi ka soo qayb galay waxay uga mahadnaqeen jaamacadda sida ay bulshada taageerada ugu muujiyeen. waa team training program ardayda ayaa isku dhex gashay wada shaqaynta ku bartaan mar labaad bulshada ayay ku dhex galaan oo bulshadiiba si toos u taabtaan community-gi ama field-ki ayay si toos u taabtaan waxay si asaas gareeyaan baahida markaas si toos u jirta oo imka indhaha bulshada tooska aan ku eegayno iyo markaad asaas gareynayso way kala duwan tahay sadarteed baahidiiba muuqanaysa waxay markaas sameeyaan report ka arkayseen oo data wax laga dhaxli karaa wasaaradda kala duwan hay'adaha kala duwan wax laga dhaxli karaa in data way primary data dukaan u yiri marka data sax oo ku saabsan kolba meesha asaas ma sameeyaan waliba waxa u dheeraa research fa u dheeraa arday kasta iskii uu qoray research-ka marka waxaan isku daynaa problemka meesha ka jira waxa hadii wax ka liitaan iyo hadii waxaan ku dari karno anagoo ah arday ahaan waxaan u qaban karnaa isku daynaa markaas taasina maxay waxay noqonaysaa community diagnosis baa loo yaqaanaa environmental hygiene and sanitation yani environmentalkii iyo qashinkii ku waxaysnaa iskuulka dhexdiisa inaan ka ururno kadibna aan anagu manage garayno kadibna khibradayada iyo skillkayga markaan adeegsanay kadibna environmentalka aan ka nadiifin in project-kan waxyaabaha uu min project-gu noo qabana waxa kamid ah cooperation buu sameeyaa yani xiriir yani isdhexgal bulsho sameeyaa campaign olole nadaafadeed ayaan sameynay ololaha nadaafadeed oo ahayd ujeedadayadu inaan qabano si aan kor ugu qaadno hygiene-ka ayaynan ka hortagno communicable disease xanuunada ku gudba activity-ga ay qabteen imka sheegayaan inay tuseen inay kuwani wax dheer yihiin baad yar moodaa kuwa kale wayna ku mahadsan yihiin maanta waxaad geysateen idinkoo ardayda tan waxaan kaloo idin sheegayaa rajaydin qabtaan aqoontiin waa fiican tahay waa tartamaysaan aniguna intaan meesha joogo waxaan ballan qaadayaa inaad sidaad maanta dadkiina ugu shaqayseen idinku cadaalad sameeyo qalinkiina aad wax ku heshaan oo imtixaan ku heshaan oo aan ku helin qabyaalad iyo wax kale ku bishaaraysta insha Allah taala waxaan si ballan qaadayaa inaan arday ugu sareeyna qaadan doono insha Allah taala waan abaalmarin baan uga dhigayaa kaalintaad geysteen oo aan idinku mahad celinayaa raadkoogu waa maxay kuwan imkaan arkayna wax soo bandhigay ee qulubtaydii bedelay ee walaashay ka ooyisiyay ee walaalkay bedelay ee anigay bedelay ee inagayna bedelay iyada soo saartay Soomaaliya isaga waxa weeyaan ma adartay hadaynan jirin cid lagu dabadayda waynu lumaynaa shaydaan man ku dabadaynayna waxaan leenahay maanta in awaarana siinahayde laakiin thank you baan leenahay markay wax qabtaan waxay horta ku baranayaan kelmadda ihsaankii in magaalo wax la istaro oo qofka aad dhaanto adoo ardaya oo adiga lagu hayo qalinkaaga iyo buuggaagii iyo briigaaga lagu siinayo ayaad halan ka soo jeediseen inaad dad wax tartaan kullay ardayda jaamacadda iyo macallimiinta iyo madaxda jaamacadda waanu hambalyeynaa runtii waxa wanaagsan ay qabteen waynu ku ammaanay runtii saa la sheegay wax kaga duwan jaamacadaha kale iyo dadka kale wax baranaya weey inay hoggaan noqdaan oo ay dadka hor kacaan oo runtii arinta la wadana way fiican tahay waxaan leeyahay ardayda waxaan soo qabatay waxaad qabateen wax wanaagsan waxa weeyaan waxaad kiciseen dareen fara badan waxa weeyaan waxaad ka jawaabteen oo ka jawaab celiseen wixii bulshadiinu idinka baahnayd ee wax soo barateen ilaahayna waxaan idinka baryayaa in qalin jabin wanaagsan inta idin hadhaynu ilaahay idinka dhigo inuuna hortiina dadka aad caawiseen ducadoodu ay fiilka idinku sugto oo qof walba baahidiisa gaarka ah u helo intaasina waa inta ardayda MCH-yaduna way caawiyaan
iyaguna wayna caawiyaan kalsooni badan oon ku helnay waxqabadkooga haddii wax emergency nagu dhaco waxa weeyaan dhakhaatiirta la joogta sida dhakhtar honok la jooga ayay emergency noogu soo diraan intaananu refergareyn beeshinkii seriouska ahaa iyagaa wax nagala sii qabta arrinta ugu weyn ee aan islaahay sanadka way soo qabteen annaga noo qabteen waxay noo sameeyeen oo complete nooga dhigeen library-gi shelfiskii baalkii bay noo soo taageen albaabkii bay noo dayactireen iminka haddaad gashaday waa sida library-gii jaamacadoo kale ayay ka soo dhigeen maxamed xasan ismaaciil biro wararka telefishinka Ariel magaalada Boorama